hayaan wadan shisheeye ayaa joogtaa waayo wadan shisheeye waxaa la rabaa inaad dareen ku joogto dal aad lahayn dareen ku assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada walaalaha khaaliga dhammaantiin saa u wada dhantiin mar kale iyo video cusub iyo walaashin Shama family soo dhawaada maanta iyo aragti cusub ma sha Allah seetiin caafimaadkiina alxamdulillah anaga waa fiicanahay bush iyo barwaaqo haday tahay markii ugu horeysay si xishmad leh subscribe kan ka codsanaya ada ila jooga jirtayna ku soo dhawow channelka waa channelkaaga meel laga jecel yahay maanta abay Shams waxay nii wadaa waxyaalaha hadda social media ka socdo ayaa runtii aan ka aamusi waayay dadka oo maxaa la dhahaa asiga sheekooyin lagu bartay ama in wax soo gudbiyaan lagu bartay miihi routiinadeyda iyo ii sheeg adiga vlogyadeyda ayaa iga badan waa aragteen reera hadal miihi reera ii sheeg adiga reaction miihi reera ii sheeg adiga in waxaan dantiisa ahayn ku mashquulsanna miihi runtii saasaan wanaagsan laakiin waxaa jir gabdhow waxyaalo qaar oo laga aamusi karin ayaa jiro sida hadoo kale waxyaalaan soo cusboonaaday oo social media ka socda qaasatan TikTok waa aragteeno badankiina hadaa aragteen waaba aragteen hadii kalena insha Allah waan iga daba geenayaa haduu Ilaahay idmo horta gabdhow waxaa fiican in runta la isku sheego hadaan reer kurbaha nahay all of them kurbaha dhan markaan dhaho qaasatan reer Germany digniintan waxay ku socotaa reer Germany gabdhow isdaba qabta waxa oonay horta waa hooyo Soomaaliyeed waxa dhibaataysan waa hooyo Soomaaliyeed waxa cabanay waa hooyo Soomaaliyeed waxa everyday times oo maanta social media ka qaylanayo haday tahay wadankii haday tahay kurbaha horta waa gabdhii Soomaaliyeed gabdhow waxaan iswaala naqda maran jaray gabdho horta waxaa fiican in runta la isku sheego gabdheena Soomaaliyeed ayagaana dhiban ayagaana qaldan maxayna ku dhiban yihiin maxayna ku qaldan yihiin marka hore horta waxaa ii sheeg adiga ay ku qaldan yihiin isma dhahayaan wadan shisheeye ayaa joogtaa waayo wadan shisheeye waxaa la rabaa inaad dareen ku joogto dal aad lahayn dareen ku joog waay hore ayaa loo dhahay waa mahmaah jirto qofka bini aadanka marka waxa loo baahan yahay marba hadaa dalkaaga soo tagtay oo wada dheer ah soo martay oo tahriib ah soo martay oo magafa ah soo martay oo ii sheeg adiga hadii kala dhankan iyo Turki iyo Greek iyo ka imaatay adiga one ever meel walba ka imow ama dhankan Liibi soo mar ama dhankan Turkiga soo mar tahriib waa tahriib gabadha marka waxaa la rabaa in aqligeeda uu shaqeeyo marba hadii wadankeeda ay ka soo tagto oo wadan shisheeye imaatid oo guursatid oo family naqatid waa ina aqliga kala goostaa maxaana ku dan maxaana ii sheeg adiga aad iska reebaysaa laakiin gabdhaheena waxay sameeyeen waa isbalaqeen waxay isdhaheen gabdhiya xornimada qaadanaya ayaga baawur leh ayaga ii sheeg adiga ragi ka sareeyo cid saan ku fiirin karta malahan ninka hada isku dhacdin uwac maxaa la dhahaa si askarta halaga ceeriyo lacagtaada soo furo gurigaaga quruxso dhaqle waxaaba faan laga dhigtayba ii sheeg adiga in ilmihii iid isla noolyihiin faan laga dhigtay faan ha laga dhigtay ma baxba ma isdaba qabatid ma isha ilmahaada kindergartenkooda iskuulkooda isbitaalkooda balamahooda ma xajisid maxaa ku dhex dhigay TikTok 24 saac TikTok la iska caynaa TikTok ya ii sheeg adiga qabiil qabiil la isku caynaya waxa dantaada ahayn 24 saac waxa ku jirta TikTokii 24 saac TikTok ya laga qaylanaya hadii lacala oo balan ay leedahay balanti way ka dib dhacaysaa ayadoo caawadan dhafarsanas waxdi ilmihii oo nadaafadooda sugneen cuntadooda sugneen labiskooda sugneen ay la cararay iskoolkii geynaysaa ayadii oo rifrifan oo ay isku toosneen war gabdhow saa ma ahan anagana gaalada nagu dirina qoysas aad boqolkiiba boqol u fiican ayaa degan oo maslaxadooda iyo dantooda iyo meelaha qaar istaageen marka waxaa la dhahay badda waxaa qurmiyo hal malaay hadda bariyahan reer Germany waxa ku dhacay reer Germany ma saa iska daysa reer Germany wala gabdho badan oo Sweden Mareykan Canada iyo sheegada wadamadan oo galbeedka oo dariskeena ka wada qaylinaya arkinin ina talo la siinay reer Germany
horta reer Jarmal ma wada xuma alxamdulillah waa degannahay ilaahay dhibna nama tuso ilaahay dhibka yaroo hadda la sheegayn ilaahay dad ha ka dulqaado gabdho badan oo danahooda ka saayaan oo waxaan ku dhahay qoysas oo ninkoodii ayaga isku duuban ayaa buuxaan lambar 1 aan ka ahay laakiin haddii 5 qof 6 qof wixii ay halaayeen inaa reer Jarmal oo dhan horta aad isku dartiin ma ahan gabdhow kala saara gabdhahan kalena waxaan leeyahay danihiina ka fikira wadankan hadiiba marba adoo ninkaa ku qabo aad dhahdid saaxiibnimo iskula joognaa mise waa isfahmi weyne aad kala qortiin laba kala adrees kala qaadatiin koow horta gaalada u danaynayseen waxaad gaalada ugu danaysaan waxay tahay naagtan kaliya ilmaha mas'uulka ma naqan kartaa la dhahayaa beri ka maalin dabagala lagugu sameynayaa waa naag batrooy in lagu keenaa mana diidi kartid waayo waa lagu xukumaa marba haddii ninka iska ceerisid oo asagana adrees kale inuu qaato lacagta noo dhuro Soomaali guri noogu dhis anigana cidaan wixii ka qaadan ilmaha noogu biilaya waxaan dhalnana saaxiibnimaan ku dhaldhalaya hadaad iska dhaadhicisid horta waa wax adig ka go'an waxaan leeyahay ka waantooba kow nafsadiinana waad qiyaanteen ilaahayna beenta ma jeclo gaaladii aad la joogteenna waa qiyaanteen waxaasoo dhan uquubo ana marka adigay kugu soo noqonay ogow waxaad ii sheeg adiga banaanka la soo fariisanaysid oo la barooranaysid oo la qaylinaysid adigay kugu soo noqonay marka walaalayaalow waxaa fiican marba hadaa sharciga wadanka aad u hoggaansan tahay oo ballantaada ilaalsanaysid oo iskoolka ilmahaada ilaalsanaysid oo xinaanadooda ilaalsanaysid oo nadaafadooda maasha Allah ay tahay oo gurigaaga VIP oo yahay oo adiga lagaa dareemayo oo qofaad dantaada ku jirinba aan la soconaynin cid ku soo daaqanaysa malahan ma fahanti gaalada ayaga culayska ma rabaan laakiin hadiiba marba aad dayacan tahay qofkaad guriga keensanaysid iyo qofkaad la soconaysid iyo qofkaad la saaxiibaysid aad kala garanaynin waa aday kugu soo maqantay hadda heer waxaa la gaarayba naagi isku caynayaan ayadoo biyaha iigu maqan baan fiidii ka duubay iyo ayadoo ii sheeg adiga aan telefoon isoo wacday baan ka duubay iyo labadii naag haday isdagaalaan waxaaba lagu goodinaaba fiidiyaanba ka hayaaba qofkaad la saaxiibaysid ka fiirso qofkaad gurigaada keensanaysid ka fiirso qofkaad la soconaysid ka fiirso xanaanada markaad joogtid adoo telefoon ku hadlaynin oo ordeynin oo degan tahay oo nadiif tahay oo dadka salaamaysid caruurtaada labada dhinac ka shuminaysid soo wado adoo degan tahay oo ilmahaaga nadiif ku yihiin subaxdii geyso waqtiga la geenaa ilaalso waqtiga laga soo wadaa ilaalso balamaha ilmahaaga ilaalso nadaafadaada jirkaaga laga akhrisanaa ka muuqata marka banaanka aadis dharka ugu qurux badan gasho gurigaaga markaa joogtid ilmahaaga cuntadooda iyo talaajadooda iyo dharkooda iyo sariirahooda ka fikir qofaan aqaanin gurigaaga ha keensan waqtiga hadda la joogo lisma aamino marka intaasaan talan iigu soo jeedin lahaa waan ka aamusi waayay gabdhahan Soomaaliyeed oo 24 sac oonaayo oo is eedeynayo oo is ximinaayo gabdhow waxaan leeyahay dalkiina ma joogtiino ilmihiina ilaalsada raggiina iska ceerinaysiin lacag darteeda ilmo iyo lacag ilmaha muhiimsan lacag waa wax la helo raggiina soo cishta haddii Ilaahay kula og yahay oo singalmada aad tahay oo ka dhabba tahayna hooyo adag noqo ka foorjigno TikTok-yadan iyo meelaha laga qaylinaa waa dadkan meel walbo ishay ku hayaan marba hadii lagu biilaayo oo guriga kiriis laga bixinayo oo hooyo shaqaysanaynin oo isku filmeen aad ahayn akhlagaaga kaasho qofka la saaxiibaysidna ha ahaado hooyada walaalka walaasha dad kale ha aaminin waqtiga hadda la joogo lisma aamino marka inkastoo reeraha hadal aan ahayn waxaan qaldanay karaali naqda haddaan saxayna waa alxamdulillah walaalayga Soomaaliyeed aad baan u jeclahay maadaama anagoo dhan caruur wada haysano caruurta la goranayo waa caruur Soomaaliyeed waa caruurteedoo kale ilaahay shar iyo shaytaan hanaga qabto idinkana taxdira wixii shalan iga dhacay weyban iga dhaceen oo hadda iyo dan is aruuriya luuqadana barta qofka marka luuqadiisa aad taqaanid xitaa waa iska celin kartaa laakiin luuqada dad aqoonin gabadha badan waxa arkay waraaqo u soo dhaceen oo dad kale u geysteen oo si qaldan looga akhriyay ayaan u jeeday marka dadka hadda jooga lama aamino si waxaada adigu ku maareysan lahayd falkeeda gal insha Allah waxaan aniga tagayaa khayr badan walaalayaal aan sheeg adiga foorjignaano ilaahay shartan hanaga qabto intii islaam aniga kamid ahay marka waxaan aniga tagayaa insha Allah khayr badan fiideena halaasan ku soo gabagabeynaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.